Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada. Horta marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan cashir aad iyo aad muhiim u ah inaan meesha ku fargareeyo inta aanan macnaha wax xayeysiin oona Facebook xayeysiinta si loo sameeyo iyo waxaas oo dhan aanan gelin. Waxaan rabaa cashirkan inaan macnaha waqti fiican aad geliso aad fahamtid because cashirkan waa aas-aaska Facebook inaa macnaha Facebook advertiser oo wax kasta oo xayeysiiyo gada inaad noqoto ayuu macnaha ay sabab u tahay inaad fahamto videogan. waa macnaha Facebook algorithmka soo u shaqeeyo. algorithmka Facebook qaabka u shaqeeyo oo keeni karto inuu qof macnaha wax xayeysiiyo oo macnaha xayeysiintaasna ay noqoto xayeysiin success oo shaqeysay ama xayeysiin oo qof haddana inta sameeyo noqoto xayeysiin failed oo macnaha fail garowday. Marka sababta keeni karto in 5 ganacsato ay isla xayeysiiyaan same product oo macnaha isku wada mid product. 5taas ganacsatana mid kamida oo qaato suuqi dhanba oo asiga leh wax laga gadgato, 4ta kale ay macnaha wax yar ay soo gargaaraan. Waxaa keeni karo Facebook algorithmka soo u shaqeeyo inaa fahamtid. Marka tan koobaad waa time spend wax la dhahayo ama scroll stop ama waqti qaadasho oo qofka marka uu arka xayeysiintaada macnaha Facebook waxay xisaabinayaan userkan markuu xayeysiinta arkay muxuu sameeyey macnaha because qofkan uu scroll uu sameynaya kor iyo hoos u socdo waxbuu iska fiirinaya laakiin markuu arka xayeysiinta macnaha markaas waaye Facebook waxay xisaabinayaan muxuu sameeyey, waqti ma qaatay, ma fiiriyey, waqti ma geliyey. waa macnaha haddii taas dhacdo oo macnaha qofkaas uu waqti geliyo ilaahu may noqoto 3 second 4 second 5 second may noqoto macnaha qofkan scrollka uu sameynayo kor iyo hoos u socday horta ma istaajiso. waa macnaha time spendku kow haddii taas dhacdo xayeysiintan xayeysiin fiican ayay macnaha u egtaa waaye. waa qaybta koobaad waaye koobaadka. qaybta labaada waxay tahay macnaha interaction ama in macnaha qofkii uu waqti qaatay oo macnaha wax interaction uu sameeyey oo macnaha uu maybe like uu dhahay ama share uu dhahay ama kala comment oo meesha ku qoray ama video haddii ahayd video ku fiirsaday waqti fiican uu qaatay oo maybe haddii waxaad videogaas ahay 5 second iyo hadduu ahay 10 second iyo hadduu ahay 10 daqiiqo macnaha waqti uu geliyo interaction ka dhaca meesha uu share gareeyay ama like uu dhahay macnaha waxaan aaminsanahay inaa fahamtay waxaan ka wado. qaybta saddexaad waa negative rating. negative rating waxa la dhahayo macnaha waa macnaha qofkii markuu arkay kow oo waqti geliyey oo macnaha interaction sameeyey negative rating ma dhacay oo macnaha qofkii ma ka baxshay wax qiimeyn xun ma ka baxshay macnaha ma dhahay oo xayeysiintan wax jira maan alaabtan alaab qaldan waaye waa tuugo ganacsatadan scammer waaye waxa ay sameynayaan waa fake wax ka jira male mase maxay dhaheen alaabtan waa gatay alaab fiican ay ahayd maasha allah I love it wax saas ma sameyn macnaha negative rating ma dhacay ama positive rating baa dhacay. macnaha qaybta saddexaad oo negative ratingkaas dadka macnaha waqti fiican ma geliyaan laakiin waa very important in macnaha negative rating oo qofka uu sameeyey ama positive rating uu ku sameeyey. tan afaraad waxay tahay landing page. landing pageka macnaha waxaan ka wadaa websiteka qofkan macnaha waxaa u dirta landing page ama websites kale websitekaas aa u dirtay waxaa ka rabtay in oo informationkiisa kuu soo diro oo macnaha sida magaciisa iyo numberkiisa mase waxaa ka rabtay in oo sameeyo ama alaab uu gato oo macnaha uu sameeyo wax la dhahayo checkout oo ku dhufto oo kadibna oo magaciisa iyo wixiisa ku qoro oo kadibna payment processki waxaas dhan oo maro macnaha landing pagekaas Facebook way xisaabinayaan qofka macnaha Facebook ka waday waxaa geysay websitekaaga markaa geysay meeqa daqiiqo oo websitekaaga joogay. waa macnaha bounce rate waxa la jiro oo macnaha qofka isku marka websiteka kasoo laabtay oo Facebook imaaday way xisaabinayaan Facebook marka waxaas haddii 1 second oo ka maqnaay pageka oo pagekaaga joogay websitekaaga oo isku marka soo laabtay Facebook waxay taageen marka okay landing pageka ama websiteka ayaa wuxuu yahay website aan quality lahayn so markaas waxay keenaysaa marka mar walba oo qofku oo macnaha ku soo laabto oo Facebook ku soo laabto oo pagekaaga hore ka soo laabto macnaha waxay sameynaysaa in macnaha xayeysiintii ay dhibaato ku noqoto oo macnaha xoog lacagti oo macnaha Facebook ay qaadanayaan ay badato ama intii qofay tusaayeen ay yareeyaan macnaha waxyaabaha oo xanuujin kara waa xayeysiintaada ama aadkaaga aad garay karo. tan shanaad waa account history. account historygu
waa simple waa iska fahmi kartaa waa macnaha meeqa mar xayisiin inta samaysay oo review u dirtay rejection lagu soo sameeyey kow meeqa mar account-kaaga la baangareeyey ada account-kan macnaha lagaa baangareeyey macnaha waxaasoo dhan ma jiraan waa macnaha account historygaasu waa qayb oo aad iyo aad muhiim u in macnaha aad la socoto account history hadduu account history oo xun uu yahay account-kaasu oo xayisiin badan aad rejection badan lagugu soo sameeyey ama account-kaas lagaa soo baangareeyey waxay macnaha dhibaato ku tahay xayisiintaas inay noqoto xayisiin successful oo winning ad oo macnaha dad badan gaarto oo haddii ay ahayd inaad lacag ka samaysidna lacag badan aad ka samayso ay macnaha xoogo ay ka hor istaagay caqabad ay noqonaysaa account historygaas waa caqabad aad xun ta lixaad waa targetingkana waxaan ka wadaa macnaha macaamiisha aad ugu talagashay oo aad tiri okay macaamiishaas ayaan rabaa inay arkaan alaabtan aan xayisiinayo macaamiishi loogu talagalay ma tusta waa xayisiintaas oo mase waxa waaye macaamiil kale oo audience dad qaldan ayaa arkay xayisiintaas macnaha Facebook waxaas way tirinayaan okay xayisiintaadii waxaan tusnay 200 oo qof oo iskugu jiray dumar iyo rag oo macnaha joogay meeshaas oo da'doodu ay ahayd intaas waxaa markay arkeen waqti geliyey intaasoo qof maybe 50% xayisiin fiican waaye markaas Facebook waxay gelinayaan xayisiintaada meel oo adi pocket iska dhib ama jeeb oo ayaga ay leeyihiin oo macnaha jeebka fiican ay gelinayaan haddii marka 200 qof tuseen oo 200 qof maybe 5% ay xataa waqti fiican ayna gelin waxay gelinayaan bocketka qaldan ama jeebka qaldan ay gelinayaan oo macnaha ay ka wadaan xayisiintaas uma xayisiin oo winning oo markaasna waxaa adigana sameynaya inaad lacag badan kaa baxdo oo wixiina ayna dad fiican gaarin marka waxaa arkaysaa qof dhahayo okay videogayga maantay xayisiintaana dad badan ma gaarin maalin kale haddana waxaa arkaya qofkii ku dhahayo nin xayisiinaan sameeyey intaasoo 100,000 oo qof ay gaartay intaasoo 100,000 oo qof ay la soo xiriirtay ama waxay iga gateen Facebook xayisiin markaa samaysay caadi maaha haddana week dambe xayisiinuu sameeyey dad ma gaarin macnaha waxaa waaye waxa account macnaha isku xiraayo waxa dhan waa 7 shay ayaa macnaha samayso in winning ay noqoto xayisiintaada oo successful oo targetkii ama hadafkii aad ka leedahay hadduu ahay inaad lacag ka samaysidna lacag ka samaysid hadafka aad ka leedahayna hadduu ahay in macnaha aad follower badan aad samaysatid ama Facebook page-ka aad like saaratid ama hadday tahay inaad dad ay kusoo diraan leads ama email telephone numberkooda ay macnaha isoo diiwaan geliyaan iyo waxay tahaba macnaha in xayisiintaas aad samayso ay noqoto mid successful waxaa aas u 7 shay oo meeshan aan kusoo geliyey midda ugu dambaysana waa macnaha suuqa alaabta ma ka buuxdaa macnaha saturationkan macnaha waa suuqa macnaha alaabtan oo hadda for example alaab oo bidaarta timaha lagu soo bixiyo iyo meel kasto ayaa ku arkay page kasto furto waa ku jirtaa Facebook hadda soo gasho waxa laga yaabaa 200,000 oo qof inay xayisiinayso intaasoo qof meesha joogto intaasoo qof xayisiinayso marka Facebook macnaha waqti badan ma geliyaan macnaha saturationka oo qof alaabtan oo macnaha suuqa ka buuxdo waqti badan ma geliyaan laakiin waxay waqti badan geliyaan creative-ka advertiser-ka oo sameeyey iyo qofkii ay tuseen soo macnaha ula dhaqmay xayisiintaas marka inkastoo macnaha suuqa alaabta hadday ka buuxdo oo meel kasta ay taalo ay dhibaato tahay oo macnaha lacag ku khasaaraysan yihiin ayada naftigeedana waa ina macnaha account gelisaa oo tira okay alaabtan ma tahay alaab oo suuqa ka buuxda miya haddii haa tahay waa markaas inaad fahamsan tahay xayisiinta waxay u shaqeylaadaa waxa waaye because suuqa ka buuxda alaabta marka 7 shay waa inaad aad iyo aad adigu macnaha aad uga fikirtaa markasta oo wax xayisiinaysid oo macnaha xayisiintaas waxa ka dhigi karo xayisiin shaqeyso oo lacag ku samayso waa 7daas inaad kow ka fikirto qofka attentionkiisa ma soo qaban karaa oo hadduu macnaha kor iyo hoos oo Facebook uu dhex socday horta ma celi karaa ma ka soo wadi karaa meesha oo macnaha page-kiga ma keeni karaa marka page-kiga oo imaadana kadib wax ma ka geli karaa waxaas marka waxa isku xiraayo inaad 7 shay ay shaqeyso oo macnaha aad ka fikirtid marka videoga damban si fiican u sharaxa qaybaha kale ku xigi doono marka ku salaama videoga damban isku aragno insha Allah